wararka ka imaanaya magaalada Paris ee caasimadda waddanka Faransiiska ayaa sheegaya in toogasho maanta ka dhacday magaaladaasi ay ku dhinteen 3 qof isla markaasna 3 kale ay ku dhaawacmeen. weerarkan ayaa waxaa lagu qaaday xarun ay ku leeyihiin kurdiyiinta magaalada Paris ee caasimadda ah. booliiska ayaa sheegay inay qabteen nin dhowr iyo 60 jir ah kaasi oo lagu tuhunsan yahay inuu weerarkaasi ka dambeeyay. weerarka kadibna waxaa jiray in ay iska horimaadyo dhex mareen booliiska iyo dad ka caraysan weerarkaasi. haddaba si aynu wax badan uga ogaano sida ay wax u dhaceen waxaa qadka magaalada Paris imika toos ugu jirta wariye Khadiija Maxamed Jimcaale Khadiija Qalanjo oo ah wariye degan magaalada Paris. Khadiija aad iyo aad baad u mahadsan tahay. sidee wax u dhaceen maanta? mawlid aad ayaad u mahadsan tahay. maanta waxaa magaalada Paris xaafadda 10aad ka dhacday isxabadeyn ka dhacday meel ay leeyihiin jaaliyadda kurdiyiinta ay ku leeyihiin magaalada Paris. halkaas ayaa waxaa ka dhacay israsaaseyn. waxaa halkaasi ku dhintay 3 qof dumar ah iyo 2 rag ah. sidoo kale 3 ayaa dhaawac ah mid aad halis u yahay la sheegay. halkaasoo ay boolisku soo gaareen markii dambe. waa gartay. marka meeshan la weeraray waxaa iska lahayd baa la yiri kurdiyiinta. boolisku maxay ku macneeyeen weerarkaasi Khadiija? markii ay boolisku soo gaareen meesha ee la qabtay ninka lagu magacaabo William M oo 69 jir ahaa wuxuu ka tirsanaa hay'adda SNCF ee tareenada gudaha ka shaqeeya dalka Faransiiska. darawal ayuu ka ahaa wuxuuna ku jiray howlgab. marka ninkaasi la qabtay isku dayay sida la sheegay inuu baxsado. waxa uu galay meel timajara ah oo deris la ahaa jaaliyadda kurdiyiinta. markii la qabtay ninkaasi markiiba boolisku waa ay garteen in uu dambiyo hore iyo maxkamado ku lug leh sidan oo kale haysasho hub sharci dara ah maxkamad dhowr jeer hore loogu soo taagay. waa gartay Khadiija. marka ayaga ayaa gacanta ku haya booliiska. waa gartay Khadiija. dadkan marka la dilay dhintay 3 qof iyo dadka dhaawac ahba dad gudaha ku sugnaaba xarunta mise waa dad meesha marayay? waxay ahaayeen dad gudaha ku sugnaa. sida la ogyahay waa meel jaaliyad ee howlo ka kala socdaan ee u gaarka ah. sidoo kale waa meel aad uga socdeen howlaha u gaarka ah ee jaaliyadda. dad xafiisya ay ku lahaayeen dadka jaaliyadda. waa gartay. boolisku markaa maxay ku macneeyeen weerarkan? waxaa nagu maqaalaa ninkan in boolisku ay horeyba u hayeen xogtiisa. hadda ka hor dad Afrikaana uu ku weeraray xerada la yiraahdo Calais ee dadka muhaajiriinta ee Faransiiska ku sugan ay ku sugan yihiin ee doonay inay u gudbaan waddankan Ingiriiska iyo wadamada kale. marka ninkan weerarkiisa maxaa lagu macneeyay? ujeedadu maxay ahayd baa la yiri? mawlid ninkan markii gacanta lagu dhigay markiiba booliska iyo wasaaradda arrimaha gudaha si degdeg ah ayay baaris u sameeyeen. isla markiiba waa la aqoonsaday. ninkan kiiskiisa markii la baaray waxaa la soo helay in dhowr jeer maxkamad la saaray. 2016 in maxkamad la soo taagay lagu eedeeyay cunsurinimo haysasho hub sharci darro ah aflagaado iyo waxyaabo badan anshaxumo ku ah bulshada dalka Faransiiska. sidoo kale 2017 19 June waxaa lagu eedeeyay in uu haystay hub sharci darro ah. waxaa lagu xukumay 6 bilood oo xarig ah oo gurjoog ah. sidoo kale isla sanadkan 30 June waxaa lagu xukumay 12 bilood oo xarig ah. tan waxay cadeyn u tahay amba ay cadeymo u noqon karaan in dambiyadiisa ay aad u badan yihiin tuhunkana uu si aada lug weyn ugu leeyahay. waa gartay. waxaa jiray dad ka caraysan arrintan oo sheegayay in boolisku ay dayaceen amnigoodii isla markaasna boolisku ay iska hor yimaadeen. jaaliyadda kurdiyiinta iyo guud ahaan dadka muhaajiriinta ee waddankaasi ku sugan sidee bay u arkeen weerarkan Khadiija? mawlid waa su'aal fiican. sida la ogyahay sanad kasta marka la gaaro sanadka cusub uu soo dhawaado ama waqtiga kala guurka waxaa dalka ka dhaca rabshado
rabshadahaasi looga hortago baryahan waxaa jira abaabul ay samaynayeen booliska ka hortaga dembiyada waaweyn iyo militariga gendarmka waxaa jiray in si aad ah loo xoojiyey ammaanka dalka faransiiska gaar ahaan magaalada Paris waxaa jira ciidamo fara badan oo loo howlgeliyey in ay ka hortagaan dembiyada dhaca sanadka kala guurkiisa marka waa howlgal aad u weyn oo ay samaynayeen ciidamada howlgalada sameeya waxaa hadda halkaasi joogay ciidamo aad u fara badan oo ku gadaaman dhammaanba guud ahaanba laakiin jaaliyadu waxay u arkaan haddii aan ninkan la qaban lahayn in loo arki lahaa waxay iskoor imaad sida in la dhihi lahaa waa argagixisonimo iyo dad gaar ah in dusha laga saaro laakiinse hadda waxay caddayn u tahay in ninkan uu yahay nin faransiis ah waddanka u dhashay dembiyo horena lagu helay waxay indhaha u furtay dhammaan jaaliyadaha kala duwan ama ajaaniibta ah iyo kuwa wadaniyiinta ah ee waddanka gudihiisa ku sugan in ay jiraan gacan saddexaad ee bulshada iska horkeeni kara waa gartay qadiijo muddaad ku jirtay warbaahinta dalka faransiiskana muddo dheer baad ku noolayd weerar caynkana way dhaceen warbaahinta marka la fiirsho marka dadka lagu aadeeyo muslimiinta oo kale weerarkan oo inay geystaan waxa la yiraahdaa argagixiso marka jaraa'idka iyo telefishinada iyo raadiyaasha faransiiska qof caddaana weerar uu geystay sidee baa loo dhigayaa marka warkaasi mise waxa la leeyahay nin hubaysan baa waxa geystay mise waxay leeyihiin weerarkani waa weerar argagixiso nacayb iyo cunsurinimo ay ku jirto sidee u dhigayaan warka iyagu markii la helay ninkan faylkiisa ama dib loo raacay markii ugu horreysay mise markii dambe markii ugu horreysay dadka indhahooda waxay aad ugu sii jeedeen falal argagixisanimo ah hase yeeshee hadda waxaa soo baxay waxyaabo ka duwan oo ah in ninkani uu yahay ansurinimadana ay geli karto in jaaliyadda ku nool waddankan in layska hor keeno kiiskiisana uu yahay nin hore loo ogyahay isla markiiba saxaafadda waxay u aragtay in uu yahay ansurinimo maadaama laga soo xigtay hay-adda booliska laga soo xigtay in arrintaani ay lug ku leedahay arrimo ku saabsan tuhun iyo xarig hore iyo waxa loo yaqaana cunsurinimada marka dhammaanba dowladoo dhan ayaa ku jirta madaxweynahana shacabku ula hadlay waxaa meesha tegey xaafadii ay ka dhacday arrimahan xabadaha waxaa tegey wasiirka arrimaha gudaha Gerald Darmanin oo aad ula hadlay oo horeyna istanbul ugu jireen ciidamada ammaanka ee waddanka oo dhan istanbul ayay ku jireen baryahan maadaama sanadka cusub la gelayo ee waddankana waxyaabo badan oga dhaceen marka indhaha ayaa hore ugu furnaa ciidamada iyo dowladda intaba qadiijo maxamed shibcaale qadiijo qalanjo oo wariye degan magaalada Paris oo qadka noogu warramaysay ayay ahayd qadiijo aad iyo aad baad u mahadsantahay adiga mudan mawlid xaaj abdi